waxaan weydiinayaa ma maqasheen dunida ummad kaalmo lagu dhisay ummad inta kaalmo la siisiyay dhisantay oo kaalmo lagu dhisay fi taariikh al-bashariya ma ka jirta mase jirtaaba cid kaalmada inta leeg horta isa siisa kaalmada inta leeg cid isa siisa miyay jirta war kaalmo lagu siiyay daayay leenay gaajadu waa wax la sameeyaba walidalik baa qoraa reer galbeed oo la yiraahdo Francis Morley dawr buug buu leeyahay mid waxa kamid ah al-juu' aqsaru tariiq ila yawm al-qiyamah baa la yiraahdaa midna waxa la yiraahdaa sanaa'atu al-juu' buugiisa la yiraahdaa mesela sanaa'atu al-juu' waa abuurka ama samaynta gaajada wuxuu kaga warramayaa westernku siday u abuuraan dunida kale in lagu gaajoodo si qalabkoodii iyo waxooda ay ugu helaan suuqyo lagaga baac mushtariyo wax laga iibiyo laga tijaariyo wax kan waayo umamka haddaan suuq jirin intaajku waxba ma taro ummadii wax soo saar haddaad wax soo saarto meel wax lagu iibsadaa aanay jirin wax soo saarku waxba ma taro ummadda wax soo saarka dunida ugu badan boqolkiiba 80 in ka badan bay leeyihiin ummadda caad ee la tilmaamay laakiin dunida waxba kama aha tiraahan dhowr boqol milyan balaayiin China imika maxay cuna qabataynta ugu diiday wax weeyaan waa suuqa dunida ugu weyn 1 bilyan iyo 200 milyan oo qof oo meel fadhiya hadduu 200 oo kun oo qof oo meel fadhiya uu mariyo cagaf muxuu ahaa dabaabad u mariyo laakiin cidina in la yiraahdo xuquuq lisaan buu meel kaga dhacay mooyaan cidina lama hadli karto Suudaan si laba qof bay meel ku dishay bay sheegaan marka waa in la cuna qabateeya يعني waxa weeyaan suuq dhaqaale cid iskama xidho saadaradeed mareenku jiritaankiisu wuxuu ku xidhay dadka China in wax ka iibiyo so that adduunka cid isma kaalmaysa juuca la abuura gaajada la sameeyaa si uu suuq u yeesho kaalmadan iyadu waa waxaan jirin oo helimaysid insaaninimadan iyo waxana dad yar baa qaba ummad kastaaba dhaqaalay leedahay walidalik ayaa sanaacatul juu' buuga la yiraahdo ninkii qoray baa wuxuu ku tilmaamaya wuxuu leeyahay dunida gabigeedba ma jirta buu tilmaamayaa ummad ah salla ama ummad ah kolay qadada lagu rido waxay cuntaan haysan ee wuxuu leeyahay ummad kasta inay gaajooto duulka gaajoonayo dhan waa la abuuray ee dad aan wuxuu haystaa ku filayni ma jira buu leeyahay laakiin waa maxay waa su'ul idaara ama waxa weeyaan bay yiraahdaan xusnu tadbiir baa la waayay si fiican baan loo isticmaalin si wanaagsan ayaan loo isticmaalin haddaad qof wax akhriyi kara tahayna waan ku tilmaamayaa labada buuga mesela ninkaasi leeyahay akhri ama waxaad akhridaaba kuwa lagaga warramayo dunida saddexaad ee soo kobcaysa iyo siyaabahay tahay laakiin waxaynu leenahay gaajada tani ama baahida intan leeg ee dadkan haysa waa dhib sida looga baxay adag tahay